maanta waxaa si rasmi ah uga furmay howlka dowladda hoose ee degmada Baargal kala fadhigii koowaad ee golaha deegaanka degmada Baargal ee cusub kaasi oo tirsigiisu yahay kala fadhigii toddobaad. Furitaanka kala fadhigan oo ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gaardafuu kan degmada Baargal, odayaal dhaqameed, haween, dhalinyaro ayaa waxaa si toos ah u furay isduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Gaardafuu mudane Cabdulqaadir Cato. kala fadhigan oo ay soo xaadireen dadii xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxaa looga hadlay qorshe howleedka 3 bilood ee soo socda oo ay ka mid yihiin waxyaabaha la qorsheeyay in la qabto, sameynta wadooyinka magaalada ku hareeraysan kuwaasi oo ay ka cawdeen gaadiidka magaalada ka howlgala, nadaafadda iyo soo celinta bilicda magaalada Baargal ee xarunta degmada, sameynta iyo tayeynta xarunta saldhigga degmada Baargal oo ay hadda baahi badan ka muuqato. soo yeegleeray maanta ay tahay labadii bishii shanaad 2020 isugu dowladaha hoose gobolka Gaardafuu ay noo joogo fadhiga loo furi doona intayna furan dowladda hoose shaqada waxaan rabnaa marka waxay nala joogaan ogayihii shaqada ay nagu imanay waxaan rabnaa inuu warbixinayna ka siiyo shaqaalaha dowladda hoose oo shaqeeya ogayuhu waa madaxa shaqaalaha dowladda hoose ee ugu imanay inaguna ka siiyadaa dhammaantood laakiin waxaa marka hore wakiil inoo ka ah ogayaha waxaan rabnaa marka ogayuhu xubnaha hadda nala jooga inuu noo ka warbixiyo xildhibaanadu dhegeystaan mid walba shaqadiisa dabadeedna markay warbixinaynu ka helno waynu fasaxaynaa shaqadooda qabsanayaan wixii aad kula balamaysaan baa sheegaysaan waxay su'aalaadna weydiiyaan baynu ka jawaabaynaa ugu jawaabaysaan wixii aad kula balamaysaan in baynu ilaahay isla xaqiijinaynaa maca xoogayuhu wayna ka tegayaan shaqadooda qabsanayaan maxaa yeelay shaqo kale taa loo diraya haddii aadayno xisaabiyaha iyo haddaynu su'aalaad weydiinayno waa innaga iyo xoogayahaba maxaa yeelay shaqadan idinkaa u dhaartay ilaahay kitaabkiisa gacanta u saaray lagama maarmaan marka waxaa ahayd ninkan ciddan ku hadlay dakhligii koontada degmada Baargal ay lahaan jiray lama hayo xildhibaan walba laba buug buu helayaa buug xeer lambar 7 ah iyo buug xeer hoosaad labadaa buug markaynu gallo talin ka gaarina maalin ama laba fasaxa xildhibaanadu qaadanaya waa soo akhriyay Soomaaliga ku qoran yahay waa macaansanaysaa hadda akhrido meesha kuwa kale qalbigooda baa ku soo calaamadeynaysaa maalin bay mucayin hadaynu isla qabsanaynaa waa ka ballamaynaa laakiin hay'ad baa tibi caafimaadka wax ka qabanaysaa oday hebel ha loo yeeray ma jeerayso waa golihii deegaanka waxbarashadii sidoo kale caafimaadkii sidoo kale beerihii sidoo kale hawsha deegaanka oo dhan waxa aad dhaqan ugu furso weydaan maaha oo khilaafaad xooga maaha inta kale idinkaale ila fulisaan uma yeelan kartaa intaan kale waa joognaa waxaan ku bilaabayaa xog waraysi halkan doraad baynu isla ogeyn ajada hoosaad iyo ajada weyn bay kala yihiin kan xog waraysiga waxa weeye shalay waxay noo baaqi ahaa doraad lacagtii dakhliga ahayd oo Baargal soo xiran jiray gaaridii sixiimadii lacagtii deynta ahayd oo faraha badneed oo arbaqo laabtoob kuraastii maqnayd iyo miisaskii maqnayd intaas ay noo baaqi waa horta milyan shaqo ayna sugayo aan wasaadaali karin milaayiinka intaynu markaa ku hadda waa 4 saac iyo bar qorshaha marka maadaama xildhibaanku sheegay Axmed uu carabka ku dhigtay waxa rabay waqtigeenu saa u dhameeyno xiranayno in saacada isla garano maadaama markaa sheegtay hadda inuu oran karaa 1 saac iyo bar ma soo geli karaa oo 5 ma ka bixi karaayo 3 saacadood iyo bar ma joogi rabadaan waxa kale waqtiga la yeerkiisa bas 2 saac buu soo galaayo maxaan ku yiraahdaa 5 ka bax oo ay xisaabiyahana su'aal baa weydiin doonaan hadda lacag ma leeyihiin shaqaale waxa sheegtay inaan shaqo jirin inaan dakhli jirin shaqaalana waa ku sheegtay waa shaqayn jirin iyo shaqo ma jirin labadaas isma qaban karaan baan maranayaa hase ahaatee mushaharkooda ma qaadan baa layidhi iminka mushaharka maxay marka xildhibaanada maqana iyo waa dhaartay seen u dhaaranay seen u leeyahay u dhaartay suuqyada ayna saaran ayagana saaran leeyahay marka leeyahay maqanaani kuna goorna ka maqnaani kana ka maqnaani iyo waxaa loo keenay meesha loo soo imaday guddiga inay ku jiraan halkaa ka dhisanayo arrimaha ka talanayo wixii tala ah wada goynayo ay ka mid ahaayeen laakiin isagoo daartan ay ku maqan tahay waqtiga sida ayaan og
inuu maqlaado runaantii wax fiican maaha diin ahaanna ma fiicna dhaqan ahaanna ma fiicna marka insha allah iyana waxaan kala duwanan doonaa inay noo soo xaadirani إن شاء الله هو سوي ما نضلنا قرارك هو سوينا دعوة صوتي أرسلنا بريمان أخينا هذا كان أخينا إن شاء الله هذا هو طريق المسجد. شغلة سيدنا شغلة حضانة لحين عيدا أبني رسوله عشورها ورفشة بيرو البديل تاجن شغلة قبطة حضانة لحين دولتنا يشتغل تتملكي دولة أساس كيف وعيدا عيدا كبوليسكا عيدا كبوليسكا حضانة لحين سلبيت وكشتغل وطريقي عن لحين ميسي كرسي وعن روجيسي غلكيسي يسود صاحي وبقوليه جوجين وانت صوتا محضر معمول بعد اسمها بني الدولية لهاي الحرية لهاي عشور بالغالي جري دولة باجبري انت صوتا سلقة واكما قنتها صوما انت صوتا سلقة تري واكما قنتها أنا مركو عن شعران لها إن كل هذا فضو أن نقوم كفاهم قوانا وقت كلنا قبصناها معناها قريتو كنا تصرنا حلقة إنه سيدنا هاي هي حلقة هوش ونحر من هاي لا والله marka waxaan ku dari lahaa fikir ahaan maanta waa badaalina in ka dhow yahay laynoo soo fududay maalin walba inta haddaynu qabano waa wax badan baynu qaban doonaa